saaka halka waxa isugu yimi maamulayaashii degmada Ceergaabo majority-goodii inta maqalna wakiil bay kaga yihiin waxaanu isugu nimi waa wargelin aanu wargelinayno waalidiinta awaamirtii ka soo baxday wasaaradda waxbarashada iyo guddida heer qaran iyada oo waxbarashadii hanaankeedii duruufaha dhacay daraadood waqtiga dhamaaday la rabay sidii macnaha sanad dugsiyeedka looga guuri lahaa taas markaa laba qorshe ka soo saartay wasaaraddu sida aanu ku wargelinayno waalidiinta waxa weeye qiimeyn iyo qaadis labada qorshe soo saartay qiimeyn imtixaankii la qiimeeyo KG ilaa Form 3 waa la qiimeynayaa imtixaanka waxaana laga qaadayaa imtixaanka Form 4 cidda imtixaan laga qaadayaa waa fasalka 12aad ee Form 4 loo yaqaan qiimeyntaasina salka waxay ku haysaa iskuulada iyo maamulayaasha iyo meeshii ardaydu xogtoodu taalay sidaa daraadeed waxaan waalidiinta faraynaa ku wargelinaynaa inay la soo xiriiraan iskuuladu ardaydoodu ay dhigan jireen maamulayaashii iyo macallimiintii inay la soo xiriiraan sidaa daraadeed waxa waqtiga kooban wasaaraddu ayna siisay la rabo in lagu xereeyo imtixaanka maadaama imtixaankii la xereynayo amar waxaanu ku qabnaa waqtigan la siiyay inaan ka dib dhicin waxaanu kaloo amar ku qabnaa cidii aan waajibaadka oofsan ee waalidiinta ah in ardaygoodu uu fadhiyo sanadka laga tigay imtixaanka sanadka dambe uu buude kalaaska u soo diyaar garoobaya saadaradeed marka ubadka hala hadhina waa idin wargelinaynaa marka waalidiinta waxa la farayaa wixii iskuulku ku lahaa waajibaad soo xareeyaan waajibaadkaas oo ah bilihii iskuulka 4 bilood baa lagu lahaa laakiin waxa laga dhigay in waalidka culayska laga dhimo oo laga dhigo 2 bilood inuu waalid walba ardaygiisa ka soo bixiyo arday walibana uu ogaado imtixaanka qiimeyntiisa ardaygii ka hara 8 casho gudahood anaga waxaan nahay maamulayaashii iskuulka waxba nagu maleeyo imtixaan nagu yeelan maayo marka waalidiinta waxaan faraynaa inay u dadaalaan ubadkooda buwaagtii baa jirtay arday waxa jirta buwaag ay ardaydu qaateen buwaagtan ardaydii waa laga rabaa inay soo xareeyaan iskuulada ku soo xareeyaan buwaagtii lafteedu waa ku qiimeynta ku xidhanta iyagoo haddana la ilaalinayo wacyigelintii xanuunka COVID-19